xasuusinaya haddaad ugu cusub tahay please nagu soo biir oo subscribe saan haddaad nala joogtayna we are family thanks for support. jamhuuriyadda Guinea waxaan ku niri ku saabsan yahay waxaa keenay Guinea oo ixtiraam daraysay qarannimadayada midnimadayada iyo wadajirka ummadayada khatar gelisay khaladka ay sameeyeen reer Guinea ma aha oo keliya inay qarannimadii Soomaaliya u gafeen laakiin waxay waxyeelo ku yihiin oo ay caqabad ku yihiin oo ficilka saas oo kale ah oo caqabad ku yahay inay dibadhac ku samayso heshiisiinta Soomaaliya iyo soorinta dadka Soomaaliyeed aan la siinin waqti iyagu ku wada hadlaan tusaale haddaan soo qaadano Somaliland iyo dowladda federaalka Soomaaliya xukuumadda federaalka Soomaaliya hadday iyaga Soomaali islaam iyaga isku dhan iyaga anaga haldad ah khayr baan ula jecelahay waalahay Somaliland inta goosashada rabta iyo dadka Soomaalida dhammeeray joogaan laakiin annaga inoo taallaa sidaan u heshiinahay dal kale oo dilay iyo xoolo kale nama goyn karaan sidaanu u jirnahay marka mar kasta oo faragelin dibadda nagu timaado waxay caqabad ku noqonaysaa isfahamkaygii iyo maaragtay hadalladeeda maxay dad uga baahan yihiin inay isla hadlaan hadday arkaan in dalal kaleeto ay ula dhaqmayaan sidii ay yihiin dowlad Somaliland ma aha dal madax bannaan oo ka madax bannaan Soomaaliya oo gooni u taagan adduunka meel u aqoonsan jirto saas sharciyada adduunka oo dhan iyo go'aamada adduunka oo dhan iyo inta ay yimida dalka islaamka carab waxaan ku xasuusinaya haddaad ugu cusub tahay please nagu soo biir oo subscribe saan haddaad nala joogtayna